بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إن شاء الله تعالى وحنكور رمضان قصة هدهد كي نبي سليمان عليه السلام. نبي سليمان عليه السلام سيدا أن لسعنه وحو الله سبحانه وتعالى وكم النايستي hanti iyo maal iyo awood aanu siinin ummadii isaga ka horeysay iyo cidii ka dambeysayba. marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sakhiray waxyaalo fara badan oo ay kamid ahaayeen dabaysha, ay kamid ahaayeen jinka iyo shayaadiinta iyo cafaariida, ay kamid ahaayeen in uu yaqaan mantiqa ama hadalka sida inuu fahmi karayay hadalka xayawaanaadka ama shimbiraha noqoto ama quraanjaha noqoto wixii la midka. subhanallah. marka walaalayaal nabi Suleymaan alayhi salaam waxa uu lahaa ciidamo ka kooban jinni, insi iyo shimbiro. shimbiraha waxa kamid ahaa hudhud, magaciisa loogu yeero ama la oran jiray yacfur ama yacbur. hudhudkan waxa uu kamid ahaa ciidamada nabi Suleymaan alayhi salaam. nabi Suleymaan wuxuu adeegsan jiray marka uu safrayo ayuu hudhudka iyo shimbiruhu ay u sahamin jireen meesha ay biyuhu yaalaan, maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay hibada ah in uu eegi karo ama uu sahamin karo meel ay biyo yaalaan. hudhudkan waa baxay, wuxuu ka safray saldhigii uu lahaa nabi Suleymaan alayhi salaam oo ku yaalay dhulka barakaysan ee Falastiin. waa ka safray, halkan ayuu ka safray, waxa uu tagay dhulka Yaman, boqortooyada Saba ayuu tagay. dabadeedna nabi Suleymaan alayhi salaam waxa uu isu keenay oo soo ururiyay ciidamadiisii oo ka koobnaa jinni, insi iyo shimbiro. kadibna waxa uu waayay hudhudkii. nabi Suleymaan alayhi salaam waa cadhooday, waxaanu ku dhaartay in uu gowrici doono ama uu cadibi doono hudhudkan haddii aanu u keenin war cad oo sax ah oo sugan oo uu meesha uu ku maqnaa ee uu dib ugu dhacay. hudhudkii waa baxay, waxa uu tegay qasri boqortooyada Saba. boqortooyada waxa maamuli jirtay gabadh la dhaho Balqiis ayaa madax ka ahayd. gabadhana waxay ka dhaxashay boqortooyada aabaheed ayaa boqor ka ahaa dhulkaas. dabadeedna subhanallah waxa la soo wariya in gabadhan aabaheed uu guursaday gabadh kale oo jin ah. dabadeedna gabadha jinka ah ayaa dhashay boqortooyadan ama boqoradan Balqiis la dhaho. marka subhanallah ahadis ba ku soo aragtay, laakiin ahadistaas waa ahadis daciif ah oo sanadkiisa iyo matnigoodu bay yihiin kuwa daciif. ala kulli xaal waa la sheegaa gabadhan waxay lahayd boqortooyadaas ay maamuli jirtay, awood bay lahayd, ciidamay lahayd, col u gargaara ayay lahayd. waxay lahayd carshi weyn oo ay fadhiisato. carshi waxa weeye kursi. waqtiga boqorku waxa uu inta badan leeyahay kursi ka duwan kursiyada kale oo lagu dhadhajiyay ama lagu dhoobay dahab, macdanta dahabka ah ama lu'lu'a ah ama macdanada kale waqtiga jiray. marka boqorku halkaas ayuu fadhiistaa, taaj weyn oo isaguna caan ahana boqortooyooyinku way xiran jireen. subhanallah. marka gabadha awoodda leh ayay ahayd. shimbirkii hudhudka halkii ayuu istaagay, warkii ayuu ka dhuuxay, wuu fahmay. kadibna waxa uu ku noqday nabi Suleymaan alayhi salaam. nabi Suleymaan waa qabtay, waa waraystay, waxa ku yidhi xagaatu maqnayd. hudhudkii waxa uu yidhi subhanallah isagoo hadlaya, waxa aan ka baxay dhulka kan oo waxaan tegay boqortooyada Saba, waxaanan helay gabadh حكوميس إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وحان هلي قبض حكوميس وفرس كلمة دو أديك سيدي وحلو وجدت ما وصن أرنوان أركي ما وصن أرنوان مقلي ما وصن أرنوان لي شيء وحلو وجدت
waan helay macnaha waan helay waxa weeye waan arkay oo waan maqlay oo waan la noolaaday subxaan allah gabadh xukumaysa boqortooyada وأوتيت من كل شيء وحكستنا وحكايست وحكست ولا سي سبحان الله ولها عرش عظيم سيدو كلنا عرش وين له gabadhaas ayaan arkay mushkilad maaha hadduu arkay gabadh meel boqortooyo ka ah laakiin waxa uu hudhudku ka yaabay ee uu arkay ayuu iminka u sheegaya nabi Suleymaan alayhi salaam waxa uu yiri wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وحاول وحان هلا بقرتو يدا أو يدا يو قوم كيدو أي عابوديان قرحت عد أي سجوديان وعد أي عابوديان إلهي غيرك سبحان الله أرنتانا أو قرحيي شيطانك أو قرحيي هدهدكي يسوق هذا الكيسي وتعي وحري ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون حي الله وسجود وين انت عاد أما قرح أي سجوديا ووحلا ليا سبحان الله مركع هدهد كان أفرسه وداعي وحا كدر نحيتك كان إله غيرك عابدين سبحان الله وركي أيوش يجي النبي سليمان عليه السلام نبي سليمان وركي وحوكوري سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وان إيجدونا إن ترون نوشكتي يا بين نوشكتي قات لمبال كان كتاب كان بأيو قري نبي سليمان كتاب أيو قري كتاب كي وحوكو قري إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أيو قري كدمنا قات أيو كوري كتور قصري مركز قصري كتورتي soo eeg waxay sameeyaan waa baxay hududkii waa qaaday warqadii iyo dhambaalkii kadibna wuxuu ku tuuray meeshii ay deganeed gabadha boqorada ah gabadhii way heshay waxay tiri inni ulqiya ilayya kitaabun kariim kitaab kariim ah yaa lagu soo tuuray kitaab sharaf leh warqad sharaf leh ayaa laga keenay way akhriday innahu min sulaymaan wa innahu bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku qoran waxa ay ka timi warqadatani nabi Suleymaan alayhi salaam waxana lagu bilaabay magaca Allah ee baha naxariista guud leh iyo naxariista gaarka ah wala nabi Suleymaan alayhi salaam waxa warqadii ku sii qoray alla ta'alu alayya wa atuni muslimiin hayska kay weynina ama hayskibrinina ee kaalaya idinku oo muslimiin ah خلاص nabi Suleymaan alayhi salaam awood buu ilaahay siiyay uu awoodi karayay inuu ku duulo laakiin waxa uu yiri ha iskibrinina idinkoo muslimiin ah kaalay gabadhii markiiba warqadii way qaaday waxay la shirtay golaheedii ama golihii wasiirada oo kala camal way la fadhiisatay markaa way la hadashay subhanallah waxa ku yiraahdeen anagu waxaan nahay dad awood leh ciidan wax iska dhicin karaya ayaan nahay awood baan leenahay haddii aad doonaysid dagaal ama inaan la dirirno Suleymaan waan la diriri karnaa laakiin adiga ayaa go'aanka iska leh ayadii ku soo celish gabadha tani gabadh aad maskax badan bay ahayd oo aqli badan waxay tiri boqoradu hadii ay galaan degmadaas hadii la galo oo laga awood roonaado afsaduha way fasahadiyan waja'alu a'izzata ahliha adilla waxayna ka yeelan dadka ciisiga iyo sharafta ku laha degmada kuwa dulaysan oo ihaanaysan Allah subhanahu wa ta'ala isagoo uga marakacaya arinta ay gabadhaasi tiri ayuu waxa yiri wa kadhalika yaf'alun sidaasay sameeyaan war marka laba boqor hadii islaayaan cid ugu horeysa hadii labadaas ay wada diriraan marka la jabiyo koox cid la jabiyay madaxdooda ayaa ah dadku loogu horduleeyo ee loogu hor ihaaneeyo ee hantidooda iyo xoolahooda la qaato subhanallah marka gabadhan waxay tiri nabi Suleymaan alayhi salaam waxaan u diranaa hadiyada hadii uu qaato oo hanti doon yahay weynaga joogaya hadii kalena waan eegaynaa shimbirkii waa duulay markiiba waxa uu tagay nabi Suleymaan alayhi salaam uu uga warramay wixii uu arkay oo dhan nabi Suleymaan alayhi salaam ciidankiisii buu diyaarsaday waa jinkii iyo insigii iyo shimbirihii oo dhan way diyaar garoobeen xaqna waxa ka soo baxay dadkii loo soo dhiibay hadiyadii nabi Suleymaan alayhi salaam markay u yimaadeen ayuu nabi Suleymaan waxa ku yiri mahadiyad ayaad siinaysan qala atumidunani bimal
famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum, ma waxaad isiinaysaan oo igu laaluushaysaan xoolo, waxa uu allah isiiyey ayaa iiga khayr badan, ee idinka ayaa hadiyadihiina ku farxaya, ee qaada oo u celiya gabadhatan, oo waxaad ku tidhaahdaan haddii aydan imanin idinkoo muslimiin ah waxaan idinka horkeenaynaa ciidamo aydan iska dhicin karaynin, waanan idinka saaraynaa degmadiina iyo qaryada aad degantihidiin idinkoo dulaysan oo ihaanaysan. gabadhii ayay u tageen, waa looga warramay gabadhii boqorada ahayd. gabadhii waxay fahantay in aan dagaal aanu xalku ahayn, way isdhiibto, waxay go-aansantay in ay muslimto oo ay isdhiibto, subxaan allah. kadibna way diyaargarowday oo alaabteedii iyo wixii isku qurxinaysay ayay qaadatay, wayna soo baxday. nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa loo sheegay inay gabadhii soo baxayso. gabadhan waxaa la dhahaa balqiis. markaa balqiis inay soo baxayso ayaa loo sheegay. nebi sulaymaan calayhi salaam waa diyaargaroobay, waxaanu ku yidhi ciidankiisii, yaa ii keenaya carshigeedii. carshigii uu sheegaya hudhudku uu lahaa carshi aada u weyn bay leedahay, ayuu waxa uu ku yidhi yaa ii keenaya carshigeeda inta aanan halkan ka kicin. cifriit oo jinka ka mid ahaa. cifriit waa cafaariidda, waa qabiilo ka mid a, subxaan allah, jimanka. markaa cifriid ka mida jinkii u adeegayay nebi sulaymaan calayhi salaam ayaa waxa uu yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik, aniga ayaa kuu keenaya inta aanad ka kicin meesha aad fadhiisato. golaha uu fadhiista nebi sulaymaan ee uu dadka ku kala xukumi jiray, ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo, ciddii isqabsata ee uu ku kala xukumi jiray, ee uu gelinka hore soo fadhiisto gelinka dambena uu ka rawaxo, inta aad fadhidid waqtigaas ayaan kugu keenayaa carshigeedii, ayuu yidhi. welibana anigu waxaan ahay nin xoog weyn oo aaminna ah, oo aan soo dhacaynin ama aan xadaynin alaabta aan soo qaado. nebi sulaymaan calayhi salaam wuu gaabsaday waqtigan, wuxuu doonayay waqti intan ka yar in lagu soo qaado. kii cilmiga lahaa ayaa waxa uu yidhi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab, kii cilmiga lahaa ayaa waxa uu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, aniga ayaa kuu keenaya inta aanay labadaada indhood, macnaha labadaada ilbiriqsi wax ka yar, hal second wax ka yar ayaan kuugu keenaya. subxaan allah. waxaa la isweydiiyey culimmadu, waxaa la yidhi kan cilmiga le waayo. kan cilmiga le horta waxaa kitaabka ku cad qur-aanka inuu yahay qof insiya, maaha jin. subxaan allah. marka waxaa loo badan yahay oo culimmada badankooda ay dhahdaan waa nebi sulaymaan laftigiisa wey. qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab, waa nebi sulaymaan laftigiisa, sababtoo ah nebi sulaymaan calayhi salaam waxa weeye dee waa nebigii xilligaas ugu aqoonta badnaa, cid ka aqoon badani maysan jirin. marka way dhici kartaa inuu nebi sulaymaan yahay, waxaana dhici kartaa inuu qof kale uu yahay. calaa kulli xaal, markii nebi sulaymaan calayhi salaam uu hubsaday in arrintaas la hor keenay carshigii, ayuu allah subxaana wa tacaala u mahad celiyey, waana sujuuday. gabadhii way timi, boqoradii iyadiiyo xawaashideedii la socotay. waxaa la weydiiyey carshigeedii inta la bedelay oo si kale laga dhigay, macnaha quraarad ama macdano kale la geliyey, ayaa lagu yidhi haakadaa carshuki, kaasi ma carshigaagiiba, macnaa kursigii aad ku fadhiisan jirtay kaa miyuu yahay? gabadha tan gabadh caqli badan bay ahayd, waxay kala saari weyday inuu kursigani uu yahay keedii iyo mid uu eeg inuu yahay. markaas waxay tidhi kelmad aada diblomaasi u ah, waxay tidhi kaannahu huwa, isagii ayaa la moodaa. subxaan allah, isagii ayaa la moodaa. calaa kulli xaal, waa baxday gabadhii. nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu ku yidhi daartan soo gal. daartana hoosteeda waxa marayay webi ama biyo ayaa marayay. marka ay biyihii aragtay ayay lugaheedii saa u fayday, iyadoo isle webiga ka tallow. nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu ku yidhi daartatan maaha, biyahani ma aha webi meesha maraya, ee waxaa ka sarreeya sarxu mumaradu min qawaariir, macnaha daartu waxa ay ka dhex dhisan tahay meel qaruurad ama ka samaysan tahay. subxaan allah. marka qaruuradaas marka aad dul maraysid waxaad moodaysaa in biyihii aad dhex maraysid, laakiin biyaha qaruuradaasa ka sarreysa, markaa biyuhu kuma soo gaadhayeen. markay aragtay gabadha tan
nicmadatan nebi sulaymaan calayhi salaam ayay go-aansatay in ay islaamto waxayna tidhi innii aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan la islaamay nebi sulaymaan calayhi salaam waxayna aamintay nebi sulaymaan calayhi salaam iyo rabbigii sulaymaan boqoradaas iyo qoomkaasi in ay islaamaan waxaa sababay hudhudkaas yar ayaa sababay ee hamiga qaaday in uu nebi sulaymaan calayhi salaam uga waramo in xilligiisii oo ugu awood badnaayo dowladdii ugu awoodda badnayd ahayd super power uu yahay in ay dad caabudaan ilaahay kayrkii cadceed ama sanam ama wixii la midkaa subxaan allah inta waxaan kusoo gabagabayn doonaa insha allahu tacaala qisadii hudhudkaas oo runtii ku cibro qaadasho badan mudan insha allahu tacaala inta aynu mid kan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wabillahi towfiiq